بسم الله الرحمن الرحيم mahad dhammaanteed ilaahay baa iskale inoo suuro geliyay inaynu caawa isku nimaadno barnaamijkeennii khibrad wadaag oo uu marti inoogu yahay khabiir dhinaca horumarinta iyo qoraa cabdiraxmaan aadan maxamuud barnaamijkeennii baynu markan insha allah haddii ilaahay qadaro si toosa u bilaabanaynaa su-aasha koowaad inaan idinka jawaabayaa waa maxay khibrad wadaag wey barnaamijkan khibrad wadaag sidaad halkaa ku qoran ama aad meelo badanba ka aragteen وبرنامج أنا قلت لك اللي دتك عبد الرحمن وكلا أنت مدة سو شقيني إن دليرة أما إنك كلا أما دليرة حد شعب عادها كتير تبع إن يلو ذا كان خبرة دودي شقائية ويارق نما تحسون سلنا هاي قفك دليرة دينا وحكاها لكلا وحيالو لفتجي سنولاش كويفتي مثلا كرا مركب برنامج كهلايس وحوقع إن مركب هرب القفك خبرة دين لو ذا جي تاريخ دي سنة وعنه مركب كل جنا خبرة دي ويسقوا لهاي إنه لو ذا جو خبرة دي سقفك مركب هلا waxaan oranaynaa qofkaasi tusaale ayuu inaga ama qaar inaga mid u noqonaya way dadkiiba qofba meel nolosha diirada saaraya marka haddaan idin sheego cabdiraxmaan waa kuma cabdiraxmaan waxa uu in muddo ku jira oo ka shaqeeya 15 sano in gaadhaysa ayuu hadda shaqada ku jira meelo mashaariicda uu ka shaqeeyo waxay ka fulaan Somaliland iyo Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika mashaariicda badigoodu sidoo kale cabdiraxmaan wuxuu soo qabtay shaqooyin badan oo waxa laga yaabaa mararka qaar wuxuu ahaa macallin dugsi mararka qaarna wuxuu ahaa macallin dugsi dhexe waxa kale oo uu soo ahaa sargaal ka tirsan mashaariicdan ama organization kan dhalinyarada qaar badan oo inaga mid ay ku jiraan iyagana qayb uu ka soo ahaa sidoo kale wuxuu soo maray maamulo hotel wuxuu sidoo kale ahaa kaaliye jaamacadeed iyo jaamacad bara jaamacadeed intaasba uu ka mid ah isagoo bulshada laftigeedana ka mid ah kuiska wuxuu qabsada sidoo kale cabdiraxmaan waxa uu shahaadada heerka labaad ka diyaariyay jaamacadda Kampala sanadkii 2013 waxaanu ku bartay culumta horumarinta bulshada wuxuu shahaadada koowaad ka qaaday jaamacadda Amuud wuxuuna ku diyaariyay maamulka iyo maareynta ganacsiga waa jaamacadda Amuudna wuxuu ka baxay 2003 sidoo kale koorsooyin ayuu ka soo qaatay dalalka Talyaaniga Ingiriiska Belgiumka iyo Kenya koorsooyinkana waxay ku aqoon kororsiya cabdiraxmaan sidoo kale waa qoraa wax badan ku qora luqadda Englishka iyo luqadda Soomaaliga wuxuu leeyahay artikala badan oo qaarkood 2000 ay soo baxeen sidoo kale waxa jira laba buug oo uu Soomaali ku qoray buug la yiraahdo laba kala leexday iyo buug la yiraahdo dan iyo dareen cabdiraxmaan ka gayoon mayna intaas kaliya waa inaan doonayo inaad ku fahamtaan marka hadda waxaan doonayaa inaan taariikhdii cabdiraxmaan waxaan filayaa inaad wax ka idin ka baxeen imika waxaan rabaa in cabdiraxmaan uu idin la wadaago taariikh khibradiisii marka isaga oo bilaabaya muddo waqti fiican baan doonayaa inaan siiyo oo aanan ka dhexgelin si aad idinkuna uga bogataan marka cabdiraxmaan ku soo dhawow adigoo dhalinyarada khibradaada la wadaagaya ما صنتهاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أديت بدو ما صنتهاي رنتي فرحت بيتي عاوين أن هالكني مادو وعند الإرادة شيء كيسانو وحمد سليم سيدي سياسيين تا سيفيكا قالك شيء كينيا وحنسوون من كل وخبرة وذاك runtii horta waan hambalyeynaya maxay ahayd fikradan khibrad wadaag waxaan isleeyahay waa madal loo baahnaa oo fikradda iyo ra'yiga iyo aaraada iyo way aragnimadaba la isku weydaarsan karo ujeedada aanu u nimidna waa khibrad wadaaga ismalihi wax weyn oo buuran oo maxay ahayd dadka la hortimaada ku hirgalay laakiin intii ilaahay naga waafajiyo waynu isweydaarsanayna waxaan kaga yar noqonay xagga waxbarashada waxaan isleeyahay xoogaa tusaale halka ku yar jira waxbarashada anigu waxaan ahaa qolooyinkii waxaan israahdaa idinku qolooyinkii naga dambeeyayna waxbarasho xidhiidhsan u bad la kulanteen kuwii naga horeeyayna waxbarasho xidhiidhsan bay la kulmeen anagu laakiin jiilkan ku jiray waxay ahayn jiilkii markii dugsiyada sare aanu galnay oo dagaaladu ay gaar ahaan waqooyiga Soomaaliland ka bilaabmeen marka runta marka laga hadlo tacliintii dugsiga sare anaga way naga kala daadatay tacliinta yala maanan helin xilli adag oo dagaal iyo dhibaato iyo lagu jira bay ahayd go'doon iyo aag burburkii kadibna ugu yaraan 6 sano baan anagu banaanka joogno oo waxba qabanaynin oo aanay wax barasho jirin qofku inuu markaa isagu xoogaa
isdhisuu meelaha barayfadada iyo taga mooyaane aanay waxbarasho hagaagsani aanay jirin. 97 markii Camuud la bilaabay 1997 qoladii waxaan ahaa u horeysay ee lagu bilaabay jaamacadda. idinku imika waxa laga yaabaa qofka digriga koowaad imika digriga waa laga baxo magaalada inta badan master's degree baa la wada sitaa inaan digriga koowaad qaadano wax kalena ma ahayn institution bilowa oo macallimiintii iyo curriculumkii iyo wuxuuba iyo ardayduba ay wada korayeen bay ahayd. duruufaan wax ku dhiganaynay runtii duruufo waxay ahayn kuwa maanta ardaydu wax ku dhigtaan aad uga bedelan. book textbook oo wax laga akhristo iyo maxay ahayd tixraac inta badan may jirin. maantana marka laga yimaado de bookta iyo wax walba wada ogtiin aqoontii waxa ka xigtoon inaad maxay ahayd inaad marka halkan waxaan isleeyahay fursad badan baa ku jirto de qolooyinkii anaga naga dambeeyay dhalinyarada de waxa la filayaa inay maxay ahayd inay naga quality fiicnaadaan oo de idinku wadan dhisan oo xiriirsan oo nidaamsan iyo wax ku barateen anaga faariya laag bay ahayd. taa intaasan kaga bixi waxbarashada xagga shaqooyinka. shaqadii horeysay anigu yaraan baan ku bilaabay anigoo 13 jir ah iyaan shaqo family-ga ah oo qoysku leeyahay iyaan ka shaqeynayay dugsigaan dhiganayay iskuulka dhayga. gelinka dambe ayaan ka shaqeyn jiray muddaan halkaa ka shaqeeyay. waxaan isleeyahay tababarkii ugu fiicnaa buu ahaa marka laga yimaado in family-ga iyagoo aan saacidayay waayo aniga aabaa la naxariistay anoo yar dhintay mas'uuliyad baa saarneed curadka waad garanaysaan inkastoo hablayga waaweynay laakiin raggun baa malaha culayska family-ga qaada. marka shaqadaan 13 jir ku bilaabay marka laga yimaado in dhaqaale ahaan family-ga ay saacidaysay waxaan isleeyahay waxay ahayd tababarkii horeeyay nolosha ah een qaato oo dhinacna adigoo arday ah oo dugsi dhexe dhigta gelina aad shaqaysaay waxay ahayd fursadan yaraan ku helay. marka dambana ila socota ilaa imiko dhaqankayga shaqo ka muuqata muddaan halkaa ka shaqeeyay. markii dambe waxaan ku beeray NGO-yadii 9-maadkii Boorama ka shaqeyn jiray dibudhiska wadanka gacanta ka geysanayay. markaa lafteeda xirfad badan maan lahayn shaqadan qaban jiray shaqo waxay ahayd isaga badan dirdirasho in wax la dirdirto. laakiin dadadiga waaweyn oo waaye araga oo khubaro ah baan la joogay marka si dadban ma wax uga baran jiray. markii dambe waxaan arkay in baahi halkaa ay ka jirto. businesska markaan dhigan jirnaa la odhan jiray find and need and fill it. baahi halkaa ka bannaan baan arkay. baahidu waxay ahayd waxa jira berigaadii kombiyuutaradan iyo ma jirine odayada xafiisku markay mashaariicda iyo qorshayaasha sameeyaan ay gacanta ku qoraan waxa loo baahnaa qof type gareeya oo type ku sameeya type ku garaaca. type ku markaa xafiiska u yaalay ragga meesha joogayna xirfadda typing-ka may lahayn marka waxay noqon jirtay aniga la idiro la yiraahdo tech oo hebel oo meel kale ka shaqeeya u yeedh type-ka garaacaya. marka xafiiskan ka soo baxaya xafiis kale tagaya nin odayaan oo iman jiro oran jiray waa lagu baahan yahay kaale type-kii garaac. telefoonadii ma jirin oo inaad socotaa bajaaj xitaa ma jirin. markii dambe waxaan isiri type-kan why not adigu waa maanad baran karin. marka waxaana loo sheegay in type magaalada uu jiri jiray state-kii laakiin state-kii baa la keenay baa la yiri markaan anigu waan ka sheekanay waa 9-meeyihii 94 meelahaas. adu markaa macallinkii baan raadinay waxaan ku nidhi arday baan nahay xirfadaasaan u baahan nahay new type-kan oo fur. uu joogaa macallinkii magaalada Absalaan Barkad Rayaale Cabdicawl wuxuu noo furay runtii xirfadii type-ka iyaan sidaa ku bartay. muddo dabadeedna ninkii odayga ahaa looma baahan shaqadii aniga halka xafiiskii position rasmi ah ka helay marka hore nin la dirdirto ma nahay. markii dambe xirfad iyaan yeeshay waana xirfadaha marka hore tab imika markaad maqashaan waxaad suranaysaa maxaa looga baahan yahayba oo imika waxa maxay ahayd aaladaha faraha badan leh iyo suuqa ka saaro technology-gu maalinba maalin ku dari mayso. laakiin xirfadaasi waxay iga saaciday aqoontaydiina way dhistay oo proposaladii faraha badnaa oo qori jireen aan akhriyo jiray waxbaan ka bartay. markii dambe kombiyuutarada ay yimaadeen xirfadii tab-kan watay aad bay runtii ii saaciday.
isla sanadka akhirkiisii un baana boorama la keenaan u malaynaya iskuulkii ugu horreeya taymanka awdal CTC baa la odhan jiray u malayn maayo miskiinaynu soo gaadhay iskuulka laftiisa beriga cid xitaa noo dhigta waa la waayey oo xirfadda kombiyuutaradu way nagu yaraayeen macallin markaa carabaha ka soo noqday ayaa noo dhigayey kombiyuutarada laftooda applicationska markaa lagu shaqayn jiray kuwan imika user friendlyga click un la samaynayo ma ahayn functionska waa la xafidi jiray haddaad warqad daabacayso sida xasuustaa Alta F plus iyo baa la isku qaban jiray Alta FS functionska waa inaad xafidaa si aad ugu shaqayso markii dambe la yidhi waxaan user friendly ka dhigno oo qofku isagoon u baahan inuu xafido Windowska kaliya marka dugsigana markaasaan ka baxay yani waa waxyaabaan isleeyahay waa xirfadaha soft skillska ee qofku u baahan yahay haddaad shaqo dee maxay ahayday career oo sideedoo kale aad ka fikirayso haddii xitaa ganacsi iyo tijaarad iyo qofku inuu maxay ahayday ismaamulo ka fikirayo intuba way naga saacidayaan muddan ka shaqeeyay halkaa kadib bilowgii 2000 waxaan ahayn dhalinyaradii horeysay sabaabushay halkan ka bilowday ururada dhalinyarada Akara Youth Organization urur la oran jiray baan sameynay inta badan xagga wacyigelinta AIDS-ka iyaan ka hadli jirnay dhalinyarada iminka markaan sheekaysanayno waxaan ku idhaahdaa intaad xitaa waxbarashada jaamacadaha ku jirtaan intii isfahmi kartaaba hadday isku timaado urur wada samaystaan meel isugu yimaadaan bulshadiina waxbaad ku celinaysaa shaqo voluntary aad qabanaysaa xirfado asaasi in qofka uu baranayaa hogaamintii baad baranaysaa kala ra'yi kala fikir duwanaanshihi baad baranaysaa ballantii iyo time managementkii iyo skillskii oo dhan baad baranaysaa maahe dadkaad ku baranaysaa hadhow berri ka maalin markaad soo baxdo ay shaqayni dhex mari doonto hadday dowladda noqoto iyo hadday communityga kale la wada shaqeeya ay noqotaba marka NGO waxaan youth organizationkaasaan muddo ka shaqaynaynay fursad badan buu runtiina siiyey dhul banaankaan ugu baxno waxaan soo aragnay dhul aan sida kale u tagi karaynin ummad ballaaran buu nagu xidhay fursado badan buu noo sameeyey isla maalmahaas dhinacna waa markaan jaamacadda ka dhiganayno arday baan ahay 2001 baan dugsiga Al-Aqsa gelinka dambe macallinka ahaa dugsiga hoosaan dhigayay dhinacna jaamacaddan ka dhiganaynay aniga ni sheego anagu waan niga duruuf duwanayn oo rag waaweyn oo jaamacadda dhigtaan ahayn marka ugu yaraan waa inaad school feegaaga aad soo saartaa dhinaca kalena dee wax dhigidii iyo tacliintii iyo majaalkii baad ku jiraysaa waxbaad soo diyaarinaysaa oo dad baad baranaysaa wax u dhigaysaa wiilal iyo hablo qiimo leh oo ilaa iminka qaar badan aan asxaaban hoon isla leekaano qaarkood nagaba waaweynaadeen yaan isku soo barano wax u dhigaynay waayaha lafteeda waxaan samayn jirnay siyaroo maxay ahayd ay full time ma ahayn shaqooyinkan waxaa jira mararka qaarkood fursado soo bixi jiro note taking oo kale yaan samayn jirnay Hargeysa inta badan u badnaayeen marka ururka dhalinyaradan ka shaqeynayna man dad isbaranay marka waana loo yeeri jiro shirarkan note taking ka samayn jirnay waxa lagu hadlayaan qori jirnay xogaa yara waxay ahayd taxadiyaad badan bay lahayd challenging bay ahayd mar waxa laga rabaa inaad tarjunto qofku af Soomaali ku hadlaya marna aad type karayso marka shaqo aad u fiican bay runtii ahayd part time oo markaan helno 2 semester jaamacadda isaga bixin jirnay halka haddaan ka dhex galo shirka inta badan dadku Soomaali ku hadlayaan qofkan loo turjumina waa laga yaabaa qoladii caddaanka inay meesha joogaan saas oo kala shaqo xiisa badan bay runtii ahayd shaqaan muddadiiba mar qaban jirnay bay ahayd waxay ahayn dadku af Soomaali bay ku hadlayeen weliba waxaan la shaqayn jirnay hogaamiyaasha dhaqanka oo waxa la eegi jiray dhaqankeena meelaha aanu diinta islaamka iyo xuquuqul insaanka iyo waxa ka waafaqsanayn marka cuqaal bay ahaayeen af Soomaali baa la isaga hadlayaa annaguna af Ingiriis intaad u tarjunto yadadana type garaynaysaa qolooyin ajnabiina shaashaday kala socon jireen marka marar baa dhici jirtay maadaama dhaqan laga hadlayo af Soomaaliga aanan ku fahmin ba waxaan laga hadlayo odayadu ay ka hadlayaan asoo kale niman khubaraha jooga waxaan oran jirnaa barasta noo jilciyada intaan aan tarjumin shaqo fiican bay runtii ahayd oo muddo kooban ka shaqeeyay wax badan ay tartay waxna aan ku bartay jaamacadda 2003 baan anagu ka baxnay dufcadii horeysay baan ahayn 23 July 2003 baan qalin jebinay jaamacadda markaa ardaydii lagu reebay baan ku jiray 3 arday lagu reebay waan ka shaqeeyay muddaan ka shaqeynayay xafiisadana runtii markaa waan ka shaqeyn jiray administrationka
gaar ahaan kuliyadda businesska iyo maxay ahayd kuliyadda ganacsiga iyo maamulka iyo maareynta waxna waan dhigayo waxaan ahaa macallin yare baan ahaa anigoo halkaa jooga baan haddana uga wareegay muddo 3 sano dabadeed ama isla 2004 ba hotelkan weyne Rice la furay Rice manager baan markaa ka noqday managerkii horeeyay hotelka laftiisu shaqaygu cusub baa ahayd hotelka maan soo shaqaynin hotel weyn oo hoteeladii maxay ahayd aan naqaanay ka duwan adeeg iyo bilic iyo qurux iyo nadaafad iibinaya ku yaala magaalo markaa ganacsigeegu aanu xaami ahayn oo dad badan isleeyin hotelka caynkani magaalada kasii shaqayn maayo qaarkood maalmuhun iyo biluhun noo tirinayeen goormu xidhme baan shaqo ka bilaabay alxamdulillah ilaahay nagu asturay hotelka weyne maanta ballaadhay ganacsiga faraha badan leh magaalada maanta ka socdana dhiiri geliyay baan muddo ka shaqeeyay kaas waxaan ka tegay 2006 bishii 10aad waxaan u tartamay position hay'adan aan ka shaqeeyo project assistant ahaa oo Hargeysa ahaa UNTA tartankii baan ku soo baxay markaa Hargeysaan u wareegay halkaasaan muddo ka shaqaynayay dabadeed noloshayda inta dambe halkaas baan xoogaa karuga socday in yar dabadeed project officer baan noqday waxaan ka shaqayn jiray barnaamijyo horumarineed gaar ahaan dhinaca livelihoodka horumarinta maxay ahayd nolosha dadweynaha dadka qaxootiyada markaa ka soo noqon jiray iyaan la shaqaynayno guryaha loo dhisay danyartu ay galaan waa barihii xiriya qaxootiga bariga Itoobiya aadka looga soo noqonayay dad badan baa horteed soo noqday magaalada iska degan meelo maxay ahayd dhulkii danta guud marka dadkaas dib loo dejiyay xirfadana aan baraynay in yar dabadeed position kale oo xafiiska waxa ka soo baxay team leader mashruucan imika taqaanaan JPLG ga la yiraahdo ee dawladaha horumarinta dawladaha hoose ayaa loo baahday qof hogaamiya oo 5 hay'adood baa wada shaqeeya 5 hay'adood marka hay'ad walba waxay leedahay dad uga mas'uula hirgelinta mashruucan marka team leaderkii baan noqday muddo dheer baan ku shaqaynayay shaqo runtii waxay ahayd aad u xiiso badan oo caqabado meedhana waayo waxaad maamulaysaa dad aanad si toos ah u maamulin baad hawshooda isku duwaysaa waa isku duwid team leaderku waayo dadkan waxay ka yimaadeen xafiisyo kaaga ka baxsan xafiisyo kale iyo accountable iyo u report gareeyaan sidaas way tahay adigu team leader baad taho fulinta mashruucaasi wixii ka xumaada adiga u qoolan marka inaad dadka isku keento aad ka wada shaqaysiiso xiriir fiican aad la yeelato bulshada aad la shaqaynaysiin delivery aad samayso waxaad tirahdeen waan qabanaynaa sidiisii u fulo waqtigii la yiri waa lagu qabanayaa iyo miisaaniyadii la yiri waa lagu qabanayaa lagu fuliyo kaasaan muddo isna ka shaqaynayay markii dambe waxa iigu beeray inaan xafiiskayga markaa madax ka noqday oo markaa laba mas'uuliyadood waaweyn bay ahaayeen oo marna mashruucan aan si gaar ah mas'uul uga ahay marna xafiiska UN Habitat Somaliland man head of office ka ahaa oo wixii mashaariic socda aan maamulayay oo isku dubaridayo aan wakiil ka ahaa muddo dabadeed waxa soo baxday fursad position ka sareeya oo Nairobi oo ilaa marka hore Somaliland baan ahay Somaliland iyo Soomaaliya kaasina 2014 baan u tartamay ilaahay igu guuleeyay kaasaan isna muddo ka shaqeeyay oo shaqadu inta badan halkan tii aan ka qaban jiray oo meelo kalena runtii ka socota gobolkana meelaha qaarkood aan wax ka qaban jirnay regionka kaana muddan joogay imika ugu dambeyntii program manager baan ahay oo xogaalkaana kor baan uga sii rakacay waxa weeye mashaariic kala duwan oo teamka aan wada shaqeynaa ee maamulaha anigu guud ahaan mas'uulka ahay Somaliland iyo Soomaaliya waana horumarinta dawladaha hoose marka halkaasaan imika anigu maxay ahayd shaqo ahaan aan joogaa ma yihi dadka inta badan boodboodka badan ee halkaas u bandhidibada aastay oo aan isku dayay inaan maxay ahayd xoogaa horumar ka sameeyo waxaad mar dhaweey taabatay dhinaca qoraalka taana runtii kama madhni waxaan idhaahdaa waa feegarin weyno runtii ilaa mar hore wax baan qorqori jiray waxaan xasuustaa qoraalkii iigu horreeyey aan daabaco 2000 buu ahaa baan filayaa anigoo markaa jaamacadda dhigto Sophomore
journaalka hargeysa ka soo bixi jiray maaqa nimkeena soo baxay The Republican yaan ku qoray waa jamhuuriya qaybtiisa ingiriiska oo sabtida soo bixi jirtay nin macallin ah baan u geeyon ku yiri bal ila eeg intaanan uumiyaha ku soorin in la kala hufo la kala hadiyo macallinkii shaqo fiican buu runtii ka qabto qoraalkii wada cas bii soo gudbiyo wuxuu yiri dad fiican tahay meelaha hagaaji siida markaa waxaan xasuustaa yani waxaan doonayaa inaan ila wadaago saameynta uu igu yeeshay maalmo dabadeed maamulkii jaamacadda ay yeero oo igu yiri war maxaad qortay markaa beriyahana internetka waddanka ku cusbaa anu markaa waxaan islaamala badbad gasho daalac baa lagu raacaya laakiin xaqiiqadu waxay ahayd dadkii jaamacadda markaa taageeri jiray jaamacadduna way cusbayd wuxuu wada ahaa jadiid buu waddanku wada ahaa wax cusub iyo qoraalka arko markaa miqyaas fiican bay u arkeen maamulka la soo hadleen idhaahdeen arday sophomore hadduu sidan wax u qori karo dee waa wax runtii dhiirigelin oo lagu farxo marka anigana runtii waxay noqotay dhiirigelin markaasoo maxay ahayday halkaasaan ijaasada ka qaatay beriga inta badan af ingiriisi baan beriyaha hore wax ku qori jiray maqaalo iyo artikalo kuwa academic way ku yaraayeen mid iyo laba malaha ku jiray Soomaaligana inta dambe runtii aad baan ugu qori jiray xagga qoraalka waxaanu kaga gaabsanaynaa inay jiraan laba book oo soo baxay book la yiraahdo laba kala leexday oo laga yaabo in dad badan akhriyeen oo sheeko faneed ah oo 2014 arrimo badan oo ijtimaaci ah aan kaga hadlayo iyo buug u dambeeyay oo sanadkan soo baxay oo dan iyo dareen la yiraahdo oo sheekooyin iyo maqaalo ah oo isku ururiyay walina malahiga ma dhawee hadii ilaahay igu simo kulli wax kale waan soo maxay ahayday waan qori doonaa waxaan isleeyahay meelaha aan imika dul maray maxaa dadka ka anfacaya meelaha su'aasha noqonaysa imika ilaa waxaan ka sheekeeyay number 1 waxaan u fahmayaa dadka halka jooga inta badan inay yihiin dhalinyaro jaamacadaha dhigta ama waxbarasho ku jira haddaad doonaysaan inaad ama ganacsi abuurtaan ama shaqo meel fiican laga gaadho kow horta waxbarashadu waxay kasoo bilaabantaa marka aasaaska hoose timeka la soo dhaafay jaamacadaha marka la joogo isku daya waxbarashadu inay noqoto waxbarasho rasmiya oo genuine learning dad badan baa ayaan daro sanadaha jaamacaddu soo dhamaysta dad badanoo ciidaha ka badanna si fiican bay wax u soo dhigtaan marka talada koowaad aan bixinay waxa weeyaan inta aad waxbarashada ku jirtaan ardaynimada aad wadaan waxbarashadiinu ha noqoto mid maxay ahayd rasmiya oo bari ka maalin aad ku tartami karto oo tartanku maaha uun inta halkan Boorami iyo Soomaaliland iyo dhulkan joogtay regionka iyo adduunyada oo dhanba aad la tartami karto fursado maanta adduunyadu way badan yihiin wax laga yaabaa inaad ganacsi ama shaqo meel kale u tagto marka يعني وترتمي كرتا وانت guuleysan kartaa dad niyad geliso karsideeda la timaado si fiican wax u barato inta aad jaamacadda joogta aad maxay ahayd dadaal iyo karti aad la timaado waxa kale oo muhiim ah waxaan arkaa inta badan misalan markaan shaqooyinka soo xaysiino kala tusaale ahaan waxaad arkaysaa arday imika jaamacadda ka soo baxo CV-giisa oo qalalan iyo xafiisyada keenaya taasoo kale waxaan idhaahdaa inta badan waaya aragnimada xitaa voluntary ha noqotee ha ka tegin oo anigii marka horena sheegayo qofku hadduu markaa uu dhalinyarada yahay isabaabulaan dhinac waxa weeyaan xitaa social structure-kii bulshadana waa bulsho qabaliya marka intii isku ra'yiba haddii isku timaado oo ay mawduuca isleeyihin waxbaad ka qaban kartaa ay ka shaqeeyaan waa qaab aynu horumar ku gaari karno dhinaca kale kasii muhiimsan qofka ku dhismaya oo xirfad iyo aqoon iyo hogaamin iyo xalinta khilaafaadka iyo waxaas oo dhamad baranaysaa marka kuwaas inta badan dadku malaha markay shaqooyinka xareysanayaan kama fikiraan waxyaabaha ugu muhiimsan weey qof warqadiisu ay qalalan tahay iyo qof soo shaqeeyo hadduu doono nadaafadda xaafadaba ka soo shaqeynayo laakiin nidaam u sameeyo structure u sameeyo isku mid noqon maayaan waxa kaloo arkaa had iyo jeer waraaqaha qofku markuu soo codsanayo codsiga haddaad codsigaba sixi kari weydo oo codsigaaguba 100 qalad ku jiro de qofkani aad codsiga u geysay ma jirto sabab uu CV-gaaga waqti badan ugu sii qaatay waxaad ku xisaabtamaysaa in qofkan waqtigiisu qaali yahay 200 oo codsi oo sidaas oo kale ay hor yaalaan haddii kaagu gebigiisuba de wada qalad yahay ama aanu hagaagsanayn de waqti isaga lumin maayo halkaas iska dhigaya ku dadaal inuu application-kaagu error free noqdo oo soo jiidasho yeesho
aad iyo aad bay muhiim u tahay waayo waxaad ku dhalinaysaa in is yidhahdo alla ilahay qofkan fursad baa ku jirta dhowr jeer baan arkay qof masalan xafiiskii uu warqadda u qoranayay ba sixi kari lahaa adoo telesom shaqo ka raba haddaad warqadda ku socodsiisad habshiil ka waran waxaan is idhi waa dhalinyaradu markay shaqadoonka yihiin oo kale hal cv iyay develop garayaan ay haystaan kaa un bay bebedelaan marka marar badan buu qaladkaasi iska dhacayaayo dee xafiiskii uu warqadda ku codsanayayba ninkaan saxayn dee berri warqadda uu soo saari kara waad garanaysaa marka taasina in layska ilaaliyo aad iyo aad bay muhiim tahay waktigaaga inaad ka faa'iidaysato oo waktiga aad nidaamiso oo time managementku aad iyo aad buu muhiim u yahay waa wax noloshaada oo dhan la soconaya haddaad ganacsi gashay haddaad shaqo gashaba business meetings baad mar walba galaysaa deadline baa jira timeline baa jira dad baad la ballamaysaa waxaana inta badan wuxuu ku fiican yahay in dhaqan shaqo laga dhigo marka ardaynimada aad soo bilowdo ilaalinta waqtigu marka waxa weeyaan waa muhiim runta inaad runta sheegto aad dhaqan ka dhigataana waa laga yaaba aad iyo aad buu fiican tahay waxay ku noqonaysaa maxay ahayd waa lagugu baranaya waxay dhifaan garaynaysaa shakhsiyadaada inaad ku qanacsanaato kolba halkaad joogtaana waa muhiim waxaan uga jeedaa ma aha horumar ha samaynin laakiin dad waxaa jira masalan halkan ay shaqo ka helaan qalbigoogu uu maqan yahay oo meel kale usii jeedaan kolba halkaad joogto u hagar baxa shaqada sida ugu fiican ee suurtagala u fuli waxa kaloo qanacsanaantu noqon kartaa dee haddaad ganacsi ka shaqaynayso iyo haddaad mishaar qaadanaysaba kolley wax go-aan baad leedahay marka intaad hadda iska bismilayso si kale oo midmid ku jiro waxaa u raadinin malaa waan kusoo noqon doonaaye imtimeka aan kusoo kooba haddii waad su-aali weydiinaysay haddii kale aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan horta dee ku soo celin kari maayo shaqooyin aad u badan ayuu cabdiraxmaan soo maray marka laakiin xagga dambena waa kaga dareeya waxaan doonayaa maxaa cabdiraxmaan u sahlayay shaqooyinka inuu iskaga gudbo dad baa laga yaabaa maalinkii aduu aad shahaayaddaa tagtay halkii ay iyagu tageen maanta jooga ama 2 ama 3 keliya laakiin adigu waxaa cadday tiro badan oo shaqo ah inaad marisay marka wax xeerara ama wax kuu fudaydinayay ama principle aad lahayd oo kale ma jiraan ama maxaa fudaydinayay inaad halkaa sida u gurguurto horumarkaad samayso aad mahadsantahay Ahmed principleska malaa intaan sheegay runta iyo daacadnimada iyo qanacsanaanta iyo ilaalinta waqtiga inoogu filan waxaan isleeyahay horta waa deeq ilaahay iyo fadli ilaahay haddii laga tegi waayo dadaal shakhsiyana ku dar oo wixii aad qabanaysaba runtii inaad u hagar baxdo anu imika waxaan leeyahay dhaqan shaqo ah markaan shaqaynayana si serious aan u shaqeeya waan u hagar baxaayo waxba ma hakrado markaan rawaxana taalifteedu waa arrin muhiima dee familigii iyo ehelkiiba inaad waqti siisaa beri baa jirta aniga lafteedu waqtigaygu inta ugu badan shaqo un ahaa oo habeenkii xitaa markaan guriga imaadaan shaqayn jiray laakiin waxa weeyaan xalku mala wuxuu ku jiraa markaad shaqaynaysana inaad si fiican u shaqayso inaad hakrano maxay ahayday aad shaqadaadu noqoto mid output leh oo maxay ahayday tifatiran oo lagu qanci karo markaad fasax tahayna dee reerkaaga iyo ehelkaaga iyo asxaabtaada aad waqti siiso waxaa kaloon isleeyahay shaqooyinka faraha badan leniyo soo qabtay 13 jirkaan kusoo bilaabay dhaqan shaqo iyo adkaysi shaqo bay runtii ay bareen enjoyada iyo urradaan kasoo shaqaynayay xirfad baan ka bartay luqadda ingiriisiga lafteeda waxaan isleeyahay oo dee waxaan anagu aan ku shaqaynaa waa factor oo waxa weeyaan haddana dee wixii luqaddii ama wixii lagu xidhiidhaya aanad garanaynin hadal iyo qoraalkuna waa xirfad gooniya marka laga yimaado waxaani aan qoraaladan aan ka sheekeynayne dee xirfadda gaarka ayaada ama article ha la qoro ama book ha la qoro shaqooyinkan aan haynaa inta badan qaab qoraala lagu wada xidhiidhaa marka haddaanad marka hore soo baranin oo luqadaadu aanay dhisnayn iyo hab qoraalkaagu iyadna meel gaari maysid tartankuna mar walba dee uu adag yahay wax laga yaabaa in 200 oo qof adduunyada oo dhan isaga yimiday aad la tartanto markaan soo maxay aday gunaanida waxaan isleeyahay waa qodobada hore principleskaan sheegnay iyo dadaal shakhsi ah
dhalinyarada inala joogta iyo kuwa ina daawan doona maadaama barnaamijka la duubayo oo waxa ugu muhiimsan uu yahay inaan duubid ku gaarsiino dadka waxaan doonayaa inaad talo maxaad siinaysaa qofka dhalinyarada ee maanta jaamacad qalin jabinaya ama qalin jabiyey talada aad siinayso ama tusaale ahaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa hoose ee la shaqeeya qof dhalinyaro noocee bay u baahan yihiin ama xirfadahee aqoontee waayo aragnimadee qof maxay kuweela bay u baahan yihiin taladu waa tii markii hore aan sheegay intaad ardayga tahay dadaal si fiican wuxuu baro subject matterka aad baranayso ka gungaadh yaan lagaaga sheekaynin fieldka haddaad accountant tahay dee waxa weeyaan waa in lagu daba fadhiistaa horta taa ku dadaal qofkii ganacsi raba iyo qofkii kale shaqo caynkana rababa tartan xoog leh yaa sugaya oo hor yaalla waad arkaysaan waddankeena waxbarashadu maanta siday tahay tirada ardayda sanad walba soo baxaysa marka taasina waxay sii dhiirigelinaysaa inuu qofku noqdo qof diyaarsan oo tartami kara oo dee aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo kartidiisa meeska soo dhigaya waxaan dareemay dhalinyaradu markay shaqooyinka soo codsanayaan in kala gurayneen kala haadinaynin kala hufayno waxaad arkaysaa watii markii dhaweed aan sheegayno hal CV bay shaqooyinkoo dhan ku apply garaynayaan shaqadiina dee way kala duwan taho waxay leedahay specific TOR waxbaa la rabaa fahan qofkan horta la rabo qofka markaad fahanto isku day inaad soo bandhigta inaad tahay alla ilahay qofka kartida leh ee positionka buuxin kara hadii laakiin CV-gaaga ama codsigaaga uu yahay mid generic ah oo meel walba igaga buuxiya dee qofka kala xulanaya wuxuu qaadan doonaa qofka shaqadani ka soo shaqeeyay relevant experience-kuna aad iyo aad bay muhiim u tahay watii markii dhaweed aan sheegaynay waayo aragnimada isku day inaad muujiso inaad leedahay waayo aragnimo shaqo oo hawshan la raba ah marka horeba inta badan marka la soo xayeysiinayo ama hay'ad ama ganacsi waxay doonayba ha noqotee dee waxa la yidhaha waxaan u baahannahay qof xisaabiye ah waayo aragnimo shaqo oo 5 sano ah leh howlaha caynkana soo qabtay marka codsigaaga ku fadhiisi baahidan asaasiga ee meesha maxay ahayd lagu soo qoray warqadaada codsigaana ku dadaal inay noqoto mid ka maran maxay ahayd errors iyo midmadow iyo wax jacbura marka lagugu yeedho imtixaankana soo diyaar garow dad badan iska yimaadaan soo akhri subject matterka adigoo soo diyaar garoobay isku kalsoon miiska soo fadhiiso dee ilaahayna tala saaro taas marana cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay barnaamijka iska kooban waxaan doonayaa inaan idinka laftigiina aan su'aala idin siiyo cabdiraxmaan weydiisaan intaan laakiin su'aala idin siin cabdiraxmaan aad baan ugu mahad celinayaa sababtoo ah isagoo xoog u mashquulsan waqti yaroo kooban jooga ayuu wuxuu inaga ogolaaday barnaamijka khibrad wadaag in 2 saacna anagu aan sheekaysano hortiin iminkana in 2 saac aan halkan wada joogno iyo intii aynu isa sugaynay markaa cabdiraxmaan aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ee aad barnaamijka iyo dhalinyaradaba u hurtay allaha ka abaalmariyo su'aalaha idinka idin siin doona cabdiraxmaan aad weydiinaysaan laakiin intaanan su'aalaha idin siin ustaad yuusuf xareed bay nala jooga haddii uu kelmad odhanayo ama comment ku darayo mar hore iyo mar dambe ilaahay baan u mahad celinaynaa marka labaad waxaan salaamayaa martida barnaamijka cabdiraxmaan oo runtii arrin aad u badan ka dhawaajiyey oo shakhsiyaddiisa ah runtii dhalinyarta soo koraysana wax u taraysa iyo guud ahaan waxaan bogaadinayaa barnaamijkoon aadaan ula dhacsana aniga horta waxay keenay inaan barnaamijka anaa arday u wada anaa u baahan inaan u baahanayo waan isku arkayaa taasaan u imiday laakiin waan ka cudur daaranayaa de horta kelmad baad ku yeelanaysa maa lahayn ardaydan ka mid ahaa aan u bogaadiyo cabdiraxmaan runtii oo khibraddiisa nala wadaagay oo macalinkaygii kule aanu dee waqtiyada wax dhigayay baan ka mid ahaa marka ardaydiisii baan annaa saa ku xisaabsanaya haddii ilaha idhaahdo runtii arrintani waa arrin aad u muhiima markaan ka imaado arrinka cabdiraxmaan aan ku dambeeya laakiin in barnaamij noocan oo kalea la helo waa wax aanan anuu fursad u helin laakiin fursad dahabi aanu arko ciddii doona baa lagu soo dhaweeyey in khibradda sidan oo kale loo wadaago waxaanan aad u jeclaysanayaa inuu ka jawaabayo oraahyadii ka yimid cabdiraxmaan iyo barnaamijkuba shaqo la'aanta baahsan ee waddanka ka jirta
oo runtii ah problem masiibo aad u weyn oo maad aragtay aan la dheerisan karin markaas intaasoo kun oo arday ay soo baxayso maxaadanay shaqo la'aan badanna oo intaas in lagna ay jirto marka mararka qaarkood aan waxaan aaminsanahay dadka aaminsan baan ahay inayna shaqo la'aan sidaa u sii badan ayna jirin laakiin ay jirto wax isku xidha shaqada loo baahan yahay oo intii imika uu ka warramaya cabdiraxmaana iyo qofka shaqadoonka ah qofku CV-gii buu si fiican u qorayaa warqadii kale uu si fiican u qorayaa experience-kii wixii uu wada buuxinayaa imtixaankii uu tegayaa wixii uu helayaa shortlist-kii markuu soo baxo qofkii imtixaankii galo waxaa timaadaa qofku yar Soomaaliyeed ninkii HR-kii oo qofkii isagoo ugu fiican oo ugu sarreeyaba kan kale uu garanayo ayuu shaqadii ka siinayaa laakiin waa mushkilad taalo u baahan dee qofkii inuu samro tawakkal cala Allah ku socdo dee bal challenge-gaasi waxa laga gudbi lahaa ma noo sheegi kartaa أحمد أدبان سلامية مرتدى برنامجنا طبعا أدبان سلامية مقعد عبد الرزاق بشير حسين سؤال شنو معني في الدنيا حويجي بس لو لبادي يكون يشنتي إلا يو وقت حاضر كان تاجرنا لبادي يكون يكو بيلات دنيا بدل بقى تهريف دلكينا أو ترى لهين أو لترين مركز سوم معني كل كده وجهي واحد جرتا سيفيد مركايو مادان سوى يجو إيجا سما إننا كنا سيبارو قرنا سيفيدا marka maadaama CV-da si qorano waxa dhacay karta in thousands of arday ah oo jaamacad soo qaran jibisay in de lagu celiyo oo rejected u noqdo ama loo soo jawaab waayo waxa jirta ardayda way kala magaranaysaa way kalsooni badan yihiin oo waxa jirta arday aad markaa wada is dhiibto oo give up sameeysa iyo arday aanan is dhiibin marka main bantiga waxa weeyii maadaama kun arday maanta la celiyay CV-gooda soo gudbisteen jaamacadina mid walba uu soo dhameeyay دورك هكون العلمية ميات كفي كرتان أنت العلمية أنت إذا أد أوردي ناس أورستان أنت بنيرتي نادو قبتان محوها إن أدو سميث شقابون أدو سميثان دكتور عبد الرحمن محمد أستاذ كون مهد علمية ونصلامية waxaan weydiinayaa ustaadku wuxuu soo hadal qaaday in jiraan dhalinyarta qaar jaacada ka soo baxay oo immediately doonaya inay shaqo codsadaan dadweyne markaa goobaha shaqada lagu bixinaya Kenya CV-googa oo qalalan wax experience aan wadanin ustaadku waxaan weydiinayaa horta shaqo qofka CV-go kaliya uu ka helayo oo lagu siinayaa maadaama inay jiraan oo shaqo kasta markaa experience uu ku xidhan yahay waliba experience marka qaar ay noqonayso qofku mid aan u gaari karin oo say 3 years 5 years ama in ka badan yihiin bal ka waran isticmaalka experience synthetica oo qofku markaa aan run ahayn oo ku laadhay CV-giisa si markaa shaqada uu guto soo dad baan markaa sameeyaan si shaqada shortlist-ka bal soo gaaraan su-aashaydu waxa weeyaan dadku inta badan markay jaamacada lagu jiro qof kasta fiil gaar u interest aw xiisaynayo bartaa marka hadhow toon marka jaamacada ka soo baxdana dadku waxa lagu marka hore fiilka galayso waxa lagu oranayaa fursado shaqo ka banaan waa inaad gashaa waa inaad halka martaa waa inaad soo wax barataa saameynta bulshada inta badan inagu fiilkeena ku dooranaa marka hadhow marka soo baxdo haddii fiilkii aad baranaysay baa wixii aad shaqadii aad ka rabtay aad ku weydo markaa waxay noqonaysaa inaad 100 fiil oo kala barato mise fiilka aad baratay bay kaaga dhantay shaqadu kuma xidhna fiilka aad baratay oo ku daray waxoogaa haddana magaalada dhex wareegaysa markaa waxa lagu oranayaa fiil kastood baratada shaqadiisi weydo anoo fiilkii bartay shaqo kale ma u tartami karaayo ma heli karaa magacaygu waa inuu Bakar Shaqseen su-aashan ku weydiinaya waxay tahay arday imika jaamacad oo imika soo qalin jabiyay oo aan xirfado kale oo gaar ah aan lahayn waxyaabaha aad ku qiimeysiineed xirfadaha aad looga baahan yahay xirfadu soo bartay aanan ahayn maxaa kamid ah daadihiya barnaamijka Axmed Cabdi Ibrahim iyo martida Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud aad bay idin salaamay idinkana laba su'aal bar layga qaatay baan Cabdiraxmaan weydiin hadii la xidha su'aal waxa weeyaan tusaale ahaan miga shaqooyinka marka la soo xayisiiyo qofku waxa laga yaabaa inuu fiilkii uu bartay ahayn laakiin si uu relevant loo noqdo marka la experience-kiisa iyo waxyaabo ka shaqeynay tusaale NGO-da kale isagoo ka shaqeynay oo experience leh 3 sano 4 sano ku soo dhex jiray ayaa waxa laga yaabaa waxa la doonayaa inuu fiilkiisa yahay laakiin isagoo khibrad u leeyahay taasoo kale maxaa yani sidee qofku hadduu apply gareeyo maxaa uga soo noqon kara su-aasha kale waxa weeyaan time-ga mukhtaar ku weydiiyahayd qofku markuu CV qoro CV-ga haddii uu ku ladho يعني waxa weeyaan experience aan sax ahayn kulli reference baa imanaya laakiin reference kale tirkiisa si loo gaashanta
بسم الله الرحمن الرحيم صح weeye waxaan filayaa way isku soo wada noqonayeen malaha xagga experience-ka in xorhaan bay yaa ugu badan Yusuf baa ka dhawaajiyay ugu horreyntii iyo experience-ka iyo qualification-ka labada midkee muhiimadda la siiyaa weeyi waxaan filayaa horta labaduba way isku maxay ahayd xidhan yihiin oo ma kala maarmaan oo qualification-kii haddaan adeysan dee geedkiiba laga furi maayo waxaa la odhanayaa qofkaasi waa inuu masalan shahaadadaas jaamacadeed u haystaa marka haddaanad haysan horta dee albaabkiiba laga furi maayo experience-kuna marka hoos loo sii daadego iyadna waxaa la odhanayaa dee qofku waa inuu leeyahay relevant experience xagga dambaan ku yar sharxi doonaa malaha waxay kala noqonaysaa working experience iyo relevant experience waayo aragnimo shaqo iyo waayo aragnimo la xidhiidha oo gaar u ah waxaani xafiisku ama ganacsigu uu doonayo marka Yusuf labada ma kala saari karo laakiin labaduba waxaan u arkay in aad iyo aad muhiim u yihiin markaan waxyaabahan ka shaqaynaynana dee waa waxyaabaha halmuceedyada ama halbeega ah waxaa la samaynayaa dadkani 200 qof waad aragteen oo dee 200 qof masalan hadday soo apply karayaan position imtixaan looguma wada yeeri karo marka hore ee maxay ahayd la soo kala saaraya la odhanaya horta qualification-kii loo baahnaa ma leeyahay experience-kiina ma leeyahay marka qofka labada horta iskula kaalinta horeba la geynayaa hadduu mid ku horeeyo oo mid laga fiican yahay waa iska personal judgment oo dadka meesha joogay iyo sida la noqotay iyo unbay ku dhamaanaysaa waxa laga dhawaajiyay marka shaqooyinka la codsado gaar ahaan hay'adaha maxalliga iyo kuwa kaleba in ay dhacdo inaan loo cadaalad samaynin oo nin jeclaysi oo kale hadalku u dhacayay waxaan is idhaahdaa dee horta waa xaqiiq jirto wayna dhacdaaba laga yaabaa laakiin aan waxaan u aqaanaa inta badan cudurdaada ay adeegsadaan dadka aan maxay ahayday dadaalka badnayni marka way dhacdaa laakiin yana ku niyad jabinin 1 iyo 2 iyo 3 iyo markaad dhowr jeer codsato haddii aanay qofka wax ka qaldanayn oo ama xirfadiisu aanay kala dhinayn daacadna uu yahay marun bad ku joogsanaysaa maxay ahayd wadada saxda marka dad badan oo waxaan arkaa runtii meelaha iska farfadhiya haddaad weydiiso tiraahdo shaqo maad codsato mada balay garaysay sanad horteed ay ugu dambeysay haddana excuse-ka uu sheegay ay noqonayso in cadaaladi aanay jeerin marka adduunyadoo dhan bay ka jirtaa keliga waxba kama qaban kartid waxaanad horeyn horaa loo yeelaa baa la yidhi adigu dadaal isdhis xaggaaga iyo inay ceebi ka timaado iska ilaali waxa kaloo Cabdirasaaq ka dhawaajiyay in dadka qaar ay isdhiibi karaan bade misalan marka 100 jeer oo maxay ahayday oo meel apply gareeyay oo soo celiyo waa dood laba dhinac leh mid waa Yusuf ka dhawaajiyo ahayd dalkeena macaamil la'aan ba ka jirta mise the right skills-kii baa naga maqan waa dood jirta oo maxay ahayd laga hadlo mid kale ee meesha ku jirtana waxa weeye horta marka horeba ala mawduucay ka baxaysaa qof kastaba inuu jaamacad galo oo wadada ilaa master's degree la sameeyay maqasaba meenan xirfado u baahnayn dalkeena wada aragteen oo aqalada marka la dhisayo balanbarka ugu hooseeya xirfadlaha de meel kale laga keenaa lama garanayo marka xirfadaha shaqo ee maxay ahayday marketable-ka ee suuqa looga baahan yahay in lagu dadaalo horta marka horeba meesha way taalaa laakiin maadaama dadka halkan fadhiyay ay arday u wada badan yihiin fiilka jaamacadda u badan isdhiibiddu marnaba de option maaha sidoo kale in shaqo uun la raadiyo oo codsi uun la qortaana de ma xuma oo sida wax lagu helayo marar badan laakiin maxaa diidaya dadku inay isku yimaadaan oo iyaga laftoodu ay fikrada la yimaadaan ganacsiga hadduu xitaa capital u baahan yahay ideas iyo waxa jira hal abuur iyo inaad fikrad la timaado Yusuf wuxuu inoo sheegay waa macallin consultancy-na uu sameeyaa consultancy-gaas waxa laga yaabaa inuu u baahan tahay specific sets oo skills gooniya kooxdani qofba waxbuu inuu xariif ku yahay laga yaabaa mid baa qoraal ku fiican mid baa IT-ga iyo presentationska iyo skillska ku fiican mid baa M&E-ga iyo dabagalka iyo kormeerka iyo waxa ku fiican haday isku tagaan oo ay samaystaan maxay ahayday ama shirkad dhe ama firm dhe ama company dhe yani waxaan ka wadaa yaana de noqonin in shaqo wadadaas un lagu wada kabo inaga dhamaadaan laakiin de options oo kalena waynu ka fikiri karnaa
experience-ka mar haddii ardaygii baa la yidhi iminkuun jaamacadda uu ka soo baxay lama huraana ay tahay waayo aragnimo shaqo inuu yeesho kuwa fake ma qori karaa baan u fahmo ma odhan karaa waayo aragnimadaasaan leeyahay maya weeyi way kaa daba imanaysaa oo innagii markii waan runta ku dhaqan maraad voluntary ku shaqaysatii horaan ku celinayahay waxaanad ahayn ha sheeganin waayo waxa kaaga daran iyadoo si loo sii gundadago halkaa wax lagaa sii weydiiyo marka dambe dee aad ku ceebooday leen bug bay ahayd oo waxaan imaad soo marine marka waxa laga yaabaa wax yar oo aad adigu maxay ahayd ay yaraysanaysaay inuu wax weyn dhinaca kale ka yahay ya abaabul bulshood samaysay maxay ahayd xaafadiinood nadiifisay shaqo voluntary ood qabatay dadkood waqtigaaga aad haysato aad wax ku celiso wax bartay literacy xitaa sida wax loo qoro sida wax loo akhriyo haddaad wax kala garan weydo kuwaa sheego dee runna ah laakiin kuwa beena marnaba kuma taliyeen waayo beentu way daba gaabantoo way kaa daba imanno way soo noqon doontaa soft skills ka layna weydiiyey waa maxay xirfadahan u baahannahay marka laga yimaado subject matterka iyo waxyaabahan halkani lagu taxee qofka looga baahan yahay dee xirfado waxaa jira lama horaan ay tahay dee computerkii waa kala iminka ka mid ah inaad si fiican u isticmaali karto beriyihii hore anigoo ma soo gaadhin waxaa jiri jiray mala ilaa wala beriyo dhawid runtii way soo gaadhay xafiisyada qaarkood secretary baa jiri jiray qof secretary ah xafiis secretary un soo xayeysiinayo shaqooyinku qofkaasi uu daabaco dee imika waxaa sibay jiraan adiga barnaamijkaagii samaysanaya presentationkaagii samaysanaya computerkaagii haystaa marka aaladan aad ku shaqaynayso horta inaad isbarataan aad iyo aad bay muhiim u tahay oo hadday noqoto deviceska kale xitaa la isticmaalayo hadday noqoto presentationska hadday noqoto sida maxay ahayd excel sheetka loogu shaqeeyo budgetka iyo xisaabaadka iyo analysiska loo sameeyo graphics aad waxaagii uga dhigayso presentationka qaabkaad u samaynayso waxaas oo dhani waa xirfado la isdheer yahay oo marka laga yimaado xirfadii asaasigii qofka maxay ahayd xirfadiisa sii xoojinaysa waxaa kaloo jirta reference checkna qof baa sheego oo arrintii inanka sheegayo markaad waayo aragnimo beena sheegato dee waxa laga yaabaa in la hubiyo laga daba tago oo dad waxa jira aan naqaano oo waraaqa ay gudbiyeen muddo dabadeed hadda iyagoo muddo ku shaqeeyey la ogaado la yidhaahdo been baad noo sheegto halka qandaraaska lagaga kansal garayo marka watii aan sheegaynay runta ku dhaqan oo ku adkow cabdiraxmaan aadan maxamuud aad buu mahadsan yahay wuxuu ahaa qofkii labaad ee barnaamijkeena khibrad wadaag caawa halkaasuu khibrad wadaag inoogu joogaa waan uga mahad celinaynaa khibradiisa iyo waqtigaa uu inala wadaagay sidoo kale idinkana waxaan idinka mahad celinaynaa inaad ka faa'iidaysataan oo dhegaysataan oo aad noo timaadaan khibrad wadaag nagala soo qayb gashaan waan idin mahad celinaa aad baad ugu mahadsantihiin